Assalaamu calaykum dhammaan asxaabtayda ku xidhan channel-kayga waa Dr. Darajo. Maanta waxaan halkan kaga hadli doonaa qanjir yar oo muhiim ah oo ku jira jidhka bini'aadamka oo la yidhaahdo thyroid. Inkastoo uu yar yahay, haddana waxa uu saameyn weyn ku leeyahay shaqada jidhka. Haddaba waxaan si kooban u sharixi doonaa waa maxay thyroid-ku, inaynu isla fahanno qanjirkan thyroid-ku waxa uu yahay, halka uu jidhku Ilaahay kaga abuurtay uu ku yaallo, cudurrada ugu badan ee badanaa ku dhaca qanjirkan. Rag iyo dumar kuu inta badan ugu badan yahay ee uu ku dhaco, walow labadoo ku dhaco haddana ka ugu sii badan ee uu ku dhaco. Calaamadaha marka uu qanjirkani xanuun ku dhaco, calaamadaha qofkii lagu garan karo marka uu yaraado iyo marka uu bato, sida qofkii loo baadhayo iyo goorta la baadhayo. Haddaba haddaynu ku horeyno qanjirkan thyroid-ku waa maxay? Thyroid-ku waa qanjir hormoon soo saara. Waxa uu qanjirkan yari ku yaalaa qoorta xaggeega hore, sida aan sawirkan aad ku arki kartaan. Qaabkiisu waxa uu u egyahay waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo butterfly-ga ama balanbaalista, oo leh laba dhinac oo la yidhaahdo lobes oo isku xidhan. Laba dhinac ayuu leeyahay, saa sawirkan sare uu inaga muuqdo. Haddaba qanjirkani shaqadiisa ugu weyni waa inuu soo saaro hormoono muhiim ah, sida hormoonada soo saara T3 iyo T4. Labada hormoon ayuu qanjirkani soo saaraa. Haddaba hormoonadani waxay door weyn ku leeyihiin shaqada jidhka. Hormoonadani door muhiim ah ka ciyaaraan shaqada jidhka. Haddaba jidh ahaan maxay u qabtaan? Waxa ay maamulaan xawaaraha dheefshiidka, waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo metabolism-ka. Waxay go'aamiyaan sida uu jidhku u isticmaalo cuntada si uu tamar ugu sameeyo. Garaaca wadnaha waxa ay sameeyaan si degdeg ah oo wadnuhu u garaaco. Haddaba hormoonadan ku guda jirno weeyaan. Heerkulka jidhku waxa ay ka qayb qaataan ilaalinta heerkulka caadiga ah ee jidhka. Hormoonadu waxay ilaaliyaan heerkulka jidhka ee caadiga ah, inta badan ay ilaaliyaan. Tamarta jidhku waxa ay sameeyaan firfircoonida ama awoodda shaqada iyo dareenka tamarta. Haddaba inta haddaynu kaga soo gudubno thyroid-kii ayuu ku dhici karaa. Haddaba badanaa thyroid-ku wuxuu ku dhici karaa dumarka marka loo eego ragga. Qiyaastii 5 ilaa 8 jeer ayuu uga badan yahay. Haddaba da'da 20 ilaa 50 sano ayaa ugu badan. Dadka waayeelka ah waxa ugu badan ee uu ku dhici kara noqon karaa waa hyperthyroidism-ka, gaar ahaan carruurta. Sidoo kale waxay ku dhici karaa, laakiin carruurtana marka qaar uu ku dhici karaa thyroid-ku, laakiin waxa kaga badan dadka waaweyn. Haddaba dhowr xanuun baa ku dhici kara qanjirkan thyroid-ka. Labada nooc ee ugu badan ee inta badan ku dhaca waa ima uu noqdo hormoonadii ay hyper noqdaan oo ay bataan, ima ay jidhka ay ku yaraadaan oo la soo saari waayo. Haddaba haddii aynu ku horeyno hyperta ama hyperthyroidism-ka inuu jidhkii uu ku bato. Haddaba hyperthyroidism-ku waa marka qanjirku hormoon uu fara badan ayuu jidhkii soo saaraya. Sababta ugu badan ee keenaysa in hormoonka badan soo saaro waxaa ka mid ah xanuunka la yidhaahdo Graves' disease-ka ama burooyin qanjirka ku dhaca, ama qaadashada iodine fara badan inuu qofkii uu qaato. Haddaba qofkii hyperthyroidism ka cabanayay, calaamado noocee uu dareemayaa ama uu ka cabanaya? Calaamadaha inta badan lagu garto waxaa ka mid ah garaaca wadnaha oo kale degdeg buu noqdaa. Qofku garaaca wadnaha ayuu had iyo jeer ka cawdo, garaaca wadnihiisu wuu bataa. Miisaanka qofku si degdeg ah ayuu hoos ugu dhacayo, miisaankiisa qofku hoos u dhacaa. Gacmaha mararka qaar gariir ayuu ku yeeshaa. Dhidid badan ayuu qofku yeeshaa. Welwel ama xanaaq fara badan ayuu qofkii hyperka uu qofku yeeshaa. Hurdo la'aan ayuu qofkii uu yeeshaa. Indhaha oo soo baxa ayuu mararka qaar qofkii yeeshaa, sida sawirkan sare aad ku arkaysaan oo kale. Haddaba haddaynu halkaa hyperteenu kaga nimaadno oo aynu haybada yaraanshaha inuu galno qanjirkii markuu dheecaanadu yaraynayo kale. Haddaba tani waa marka hormoonada thyroid-ku ay yaraadaan. Sababaha ugu badan ee uu qanjirku la yaraan waxa keena xanuunkan la yidhaahdo Hashimoto's disease-ka ama iodine-ta oo yar
ama qanjirka oo qaliin lagu sameeyo ama dhaawac soo gaadho. Haddaba qofkii haybada ahaa ama tayroodhkiisu uu soo saarayay wuxuu castaamo ama uu calaamado uu ka cabanaya waxaa ka mid ah qofku wuxuu yeelanayaa daal fara badan, miisaanku wuu kordhaya halka uu kii hore miisaanka uu degdeg hoos ugu dhacayo kan miisaankiisu uu kordhayaa. Timaha qofka way daataan, qabow fara badan ayuu qofkaasi uu lahaadaa, maqaarkuna qarqarax ama qalayl ayuu inta badan u sameeyaa. Garaaca wadnuhu uu gaabiya halku kii hore garaaca wadnuhu uu ka badanayay kan garaaciisa uu gaabinaya qofka haybada ah. Qofkii wuxuu la joogteysanayaa ama kusoo noqnoqonaya murugo fara badan ama depression ayuu yeelanayaa. Haddaba haddii dhibaatada cudurrada tayroodhku ay keenaan haddii la daaweyn waayo, tayroodhku waxay keeni karaan qofkii ay dhaxalsiin karaan ama u keeni karaan dhibaatooyin xagga wadnaha ah ama dhalmo la'aan, dhibaato maskaxeed, koritaanka ciyaalku uu gaabis noqdo ama uu hoos u dhaco. Haddaba haddii xaaladdu haybadu aad u sii khatar ay noqoto kale hypoxemia coma ayuu qofku geli karaa. Haddaba xanuunkan aynu ka soo sheekayno sidee baa loo baadhaa? Baaritaanka ugu muhiimsani waa baaritaanka dhiigga. Qofkii dhiig baa laga qaadaya oo la baaraya, waxaana la cabiraa TSH-ka ama T3-ga ama T4-ka. TSH-ku ayaa inta badan baaritaanka ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo shaqada tayroodhku. Qofkii saddex waa laga eegi karaa ama TSH-ka waa la eegayaa. Haddaba goorma la qaadayaa ama la baadhayaa tayroodhkii? Waxaa la qaadi karaa waqti kasta, loomana baahno inuu qofkii una wax soo qaadan. Dadka qaar baa mararka qaar goobaha caafimaadka ku imanaya ku odhanaya wax mana soo cunin. Mararka qaar isagoo wax cunaya isagoo wax cunin baa la qaadi karaa. Haddaba haddii baaritaan kale ama la sameynayo, waxa fiican in subaxii la qaado. Qof kasta uusan qaadan daawada, qofkuna muhiim inuu dawadii una soo qaadan ka hor baaritaanka, sababtoo ah wuxuu bedeli karaa natiijada hormoonka. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka i saarto, like-tana aad igu dhufato, wixii comment-na ay la soo wadaagto.